أو عالم ويا دينته عن شقوين كان هذا الله قال كذا عالم كوا بس كان اللي قد عجري وكذب الهور جرني هذا غرام ملء إسبار ملء وواحد اللي هو عن توا على شاء أنا قيبته وحو كاغا هلاي wax kala ma ahan علشان cilmi kala ma lahan cibaado kala ma lahan wax oo dadka u haayo ama cilmi oo dadka ugu sheegayo ma lahan wuxuu yiri isbaara ma lahan ayna gacan hoosdiib ma lahan ninkan haduu dalka dib ugu soo laabto waa jaahilnimadii oo socoto oo senator noo ah marka waxaan ku dadaali doonaa senator aan u doorano dadka cilmiga leh aan ka dayno dadka aan cilmiga u lahayn aqoonta ama jaradada aan cilmiga u lahayn aan siinayna oo leenahay ninkan ayaa namatalo ثم شنجر قرو كوبلاابي haddana konton jir raggan oo ku sheegay inay yihiin 15 jir ku bilaabo qoriga ah ee la dagaalamayo ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu ula jeedo wax kala ma ahan waa raggii mooryaannimada ku soo koray ku soo weynaaday isbaara soo dhiga jiray ku soo koray dhibaato badan dalka ku hayay kabdheena kufsa jiray dhibaato ku hayay tababar ma lahan dhaqan oo suuban oo Soomaalidu kula dhaqmi kara ma lahan hab ciidan oo lagu aqoonsan kara ma lahan dhamaanta ciidanka uu sheegayo waa ciidan mooryaan ah kaas oo dabada ku wata asaga assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh dawadayaasha qaaliga waqti kasta idin tahay wanaagsan oo wacan waa mar kale iyo video kale aad iyo aad u xiiso badan fadlan hadan nagu cusubtahay page-kan follow dheh oo la garay si share garay barnaamijkan haduu ku soo gaaro waxaan idin hayaa barnaamij aad iyo aad u xiiso badan kaasoo ku saabsan ninka lagu magacaabo Muuse Soode haddaba Soomaalidu waxa isweydiin mudan ee aad isku weydiisaa waxay tahay ninka kan aan ku tilmaameen inuu yahay senator inuu yahay aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya muxuu qabtaa dalkana muxuu qabtaa asal ahaanna muxuu yahay qofka kan Soomaalidu qofka ee boobonayso ay tiraahdo qofkan ayaa wanaagsan ayay mar walba ka dhigtaan in wanaagsan balse Soomaalidu ma ogo qofkan aqoon nuucay ayuu leeyahay muxuu dadku u tari karaa muxuu dadkan u sameey karaa waxaan ku sheegayaa oo xaqiiqada saxda dadka kan badan waxay tahay nin aan aqoon ku filan aan haysan tiisan aan ku filneen ayaan waxaan u magacawnay magac aad iyo aad u qiimo badan aan siino oo ah senatornimo balse asalkiisa ma aha nin aqoon leh tan xigta waxay tahay nin dadka wax u tari karana ma ahan waxaan ku hayaa 3 video kaasaan uga hadli doono xaqiiqada saxda iyo waxa uu yahay iyo waxa uu galo waxaan ku soo qaban doonaa videoga ugu horeeyo oo ku dacaayadeynayo saraakiisha ciidanka ah si uu u bahdilo ama uu uga hadlo waxyaabaha aadka u liita sababtoo ah ninkani macnaha qofka markuu soo haysanin aqoon aysan ku fileen ayuu wuxuu raadiyaa meelaha dulduleelka ah oo qofka uu ka jilicsan yahay waxaan ku soo qaban doonaa videoga ugu horeeyo inaad ila qiimeyso ayaan jeclaan lahay ku soo dhawaada halkan ila arka waxana dilaayay waxa amraay biixiyo qorlow sidaan arka noogu galay raba inuu ilmahayna nagu dilo waa biixi oda waayeel waay aniga waa iga sii weyn ima dhawaa runtaan sheegaa ninkan wuxuu ku tilmaamayaa biixi general biixi waa ninka ugu sareeyo ee ciidanka lugta ah ee hogaaminaya maanta ka sifeenaya cadowga dalkeena Soomaaliya ayuu wuxuu ku tilmaamayaa nin dadkii dhibaateeyay balse Soomaalidu ma umula maxay tahay waxa ilowsha dhawaa ninkan soo ninkii ma ahan isbaarada noo dhigi jiray dhibaatada nagu hayay dadkii dhici jiray qoryahana ku dhici jiray gabdhaheena kufsajo Soomaaliya kan ninkan aad u yeelaysan magacan sharafta leh muxuu yahay asaga dadka oo wax ka tilmaamayo waa saraakiisha sharafta leh dalkooda u soo halgamay wax badan u soo qabtay ayuu wuxuu ku tilmaamayaa inay yihiin dad dhibaato ku hay dadka Soomaaliyeed xaqiiqda waxay tahay maanta wayna wada ogsoonahay jirana biixi inuu yahay hogaanka ugu sareeya ee dagaalada maanta lagu sifeenayo cadowga dalkeena ninkaas ayuu maanta wuxuu ku tilmaamayaa inuu yahay dhibaato waxaan ku hayaa waxaas oo dhan waxa waa fiidiyowyadii uu ku jaa'ifeenayay dalka Soomaaliya waxaan leenahay ku soco bal ark fiidiyowga sidoo qaabka u hadlaay marka walahan la akhriso karinaan u jeednaa dadkan waa sheega maraan sheega war ima dhinna banaanka lagu kala horo hayaan qaarna waxay ku leedeen hay mataqaana qoryoole iyo dhanacaan iyo adduunyadan ay ku leedeen qaarna waxa lagu celiyay halkaas lagu celiyay ma hadda ka yimideen bacdi yaa la horoora
shimbir mukulaal yaanyuur in ciidamada loola kala baxay ay u qabaan inay ku aadaan nimankaan haye mataqaanaa 15 jir qorow ku bilaabay haddana 50 jir raggan uu ku sheegay inay yihiin 15 jir ku bilaabo qoriga ah ee la dagaalamayo ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya wuxuu ula jeedo wax kala ma ahan waa raggii mooryaannimada ku soo koray ku soo weynaaday isbaara soo dhiga jiray ku soo koray dhibaato badan dalka ku hayay kabdheena kufsan jiray dhibaato ku hayay tababar ma lahan dhaqan oo suuban oo Soomaalidu kula dhaqmi kara ma lahan hab ciidan oo lagu aqoonsan kara ma lahan dhamaanta ciidanka uu sheegayo waa ciidan mooryaan ah kaas oo dabada ku wata asaga wax kala ma ahan halkaas aan ugu gudubno ninkan waxaad aragtaa qaybta koowaad ku aragtay fiidiyowga hore inuu ka hadlayo oo ku jaaifeynayo generaalka ugu sareeya ciidanka militariga labo wuxuu sidoo kale amaanayaa ciidanka mooryaanta ah oo uu wato dadka meeyso la socon fiidiyowga waxa ku hoos jiro balse aniga waxaan ku soo saaraa waxay tahay xaqiiqda saxda ee meesha ka jirto fiidiyowga xigan ku soo qaban doono hal mar bal ila dhageysto arka dadka kasoo qaybgalayaasha waa mahadsan yihiin kulligood waana salaaman yihiin aniga sida sheekha uu caalim ugu yahay diinta aan shaqooyinkan hadda lahaayo qaarkoodaan caalim ku ah dadkaana lagu dhici jiray waa ka dabar hoori jirnay hadda qora male isbaara male waa wax dhilhoo gacantaa waa caluulashaa qaybta wuxuu kaga hadlayo wax kala ma ahan calashaan cilmi kala ma lahan cibaado kala ma lahan wax oo dadka u hayo ama cilmi oo dadka ugu sheegayo ma lahan wuxuu yiri isbaara ma lahan gacan hoosdiib ma lahan wax aan qabana ma lahan ilaa ninkan wuxuu cilmi u leeyahay oo kaliya waxay tahay inuu dadka dhaco ogow wuxuu dalkan dhibaatada ugu hayay oo hadda dhow ciladii dhacayso wax kala ma ahayn dalkan inuu dagaal sokeeyo burbur iyo dhibaato u geeyo ayuu rabay sidaas calaajigeeda waxa ka soo horjeesta shacabkii waxa ka soo horjeesta dawladii meelna iska saartay ninkan aan wali waxaan leenahay waa senator jaahilnimadii oo qof ah hadda aragto waa kan okay fiidiyowga xiraan ku soo qabanaa كان حيقول حو كذا هلا يفيري وزير كليناه وزير كليناه دستورك أرمها جود وعيري وزيرك دستورك هو وزيرك دستورك وكما وزيرك دستورك وكل شيء جاي قفك وكما وزيرك دستورك وزيرك وكهلا علمي أوليه هي علمي صدام واسدة وزير علمي أوليه ما يقانو وحو كهلا علمي أوليه ما يقانو إلا وحو ضدك وحو الشيء جاي ضد جاهلين وحو الشيء جاي ضدك أخوان طلع ما دقيست لنا فيديو كسر وزير كلام حوها مت كلام قبل على جرو وزير كلام هل قبل على سيور هي هنا وزير كلام يشاق وحوها يا من واقع شيء من واقع ربها جودها يو مالك شيء هي مكة فدرالك مايا فدرالك سستور كوا واحد ها وانت سالي سلسي بودلا ديال سلسي قبلدان وحل السي وزير كغرحية لغو قبصه هي هل كغرحية الشيغو وزير مجرى وزير قرحية لغو قبصه اما قرحية سو شيغو وزير هذا او شيغايو علمي او ليهي اسيده تا ninkaas hadda wuxuu doonayaa inuu mar labaad ugu soo laabto kursiga uu ku fadhiyo maantay senatarnimo markii hore qalad ayaa lagu siiyay balse hadda waxa xaqiiqda aan sida saxda u soo sheegana oo bayaan cad kaga sheegana waxay tahay ninkan hadduu dalka dib ugu soo laabto waa jaahilnimadii oo socoto oo senator noo ah marka waxaan ku dadaali doonaa senator aan u doorano dadka cilmiga leh aan ka dayno dadka aan cilmiga u lahayn aqoonta ama jaradada aan cilmiga u lahayn aan siinayna oo leenahay ninkan ayaa namatalo please waxaan idinka codsanayaa wax kale ma ahan aan kala barano dadka cilmiga leh ee dalkeen wax u tiri kara aan iska ilaalino dadka aan boonbooninayno ee aan aqoonta lahayn
waxaan la hadlayo waxay tahay waa dhalinyarta maskaxdooda looga jiro ku dhaqmaya qabyaalada madaxa ka gashay sida odaygan aad u aragtaan dadku wax ka sheegayo uu ku tilmaamayo waa dadkii sharafta lahay wuxuu la jiifaa oo la jiifanayo oo haas ugu dhagan yahay waa dadkii aqoonta lahay ma ahan dadkii aan aqoonta lahayn sababtoo ah jaahilka socdo oo qof ah dad aragto waa ninkan aan ku tilmaamin inuu yahay senator marka waxaan idinka codsanayaa waxa taa fiideo inta ku soo gaaro si shirkiray oo la wadaaga asxaabtada kale oo kuma santaan daawashadaada